السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة السلام عليكم. وكيلنا حسابة المعارضة وسيكون توفيقها أجزمها بوسائل قاعدين لبس على شيء إيو بعض صحافة مدرسة فردة حبله مين كهاي قرب كذا إيو حبلها هو كان كبستو بهذا وحدما تقول السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحسب كثرة هي وصاحبك هو أبي يقصد. كنت هذا البدن حنفنا وما دياري هذا لكن وقت حنفنا يا مدرسة ما تعرفونه وحيسوق بجلسي سنة تجي ولغة يفرق توقع والسنة أي صحافة السبان لا كبحان أفر صحفي وهذا قاليا إلى هون حريصته ووجود بيه حقيقي حنرشيد محمد فرح أنا مكسر بكوري عبد الولي فرح كامل بكوري وحقنا كسوري سعيد براسي لما أنت نافة صحفي سبعة عدهم مرة أيام زوجي ذي أنت كبعدي أعطانا هوجانك ورانا هاي مدتي أنا حلك حيني وحيوان بدل ما نحوق صارحي وحيوان نحوق صارحي وحكمله ووجود مهم زين دفاع حقوق دفاع حرية القول هي حقوق الصحفيين ورمتي مدتي أصلح على قصة بيننا كله ومدتي وحرق يوجب من الصحفيين تلسوا ترسي الحكومة تطلع هاي سكين أرنتاس نوع حنقطي أرنتي أن عداوة وفرح بدن كلا كنا حكومة السببي عداوة وبدن حكومة نجاتي معده دفاع فرح بدن النوج شري صحفيين تحرك جودا كنت عادي إنستيوشنز بدن بالحري وهي معه ديرة صارية ما نحوق يجي سوقي حي دفاع حرية الخلق وأنا مدة سببتي إن أنا عداوة بدن نوقعت حكومتي ترى هيسي دجال بدن أنا لكشة كنت حقيقي كود كيريو دي الحين حدث كما كورابية وحقيقي وجوه الري وجوه أتكلم صورة صمرة وحقيقي صفحات صورة صمرة صدق حقيقي صمرة صدق حقيقي صمرة عبد الله هذا عمر ويا بيموسي إنش بيهايم وحقبائل وها حقيقي وأتكلم وجود دار كبرنا وجود در إسكوات كبرنا وجود سمير كبرنا وجود طلقات كبرنا إلى هاي الحدث كما كورابية وكنت marka taan laga yimaado waayaha saxaafadda maanta haysta way fara badan yihiin waayaha maanta hor yaalla way badan yihiin saxaafaddu war ma hesho warkii qolo wasaarad waliba warkii way xidhatay wasiir telefoon ma qabto in yar buu samaysto xafiiskan baa email lagaga soo diraya cidaad wax weydiisan garan maysid cidaad la hadasho garan maysid warka xayeysiiska inaad qortuun bay noqonaysaa ama tuurto saxaafadii waxaa lagu canaananayaa waxaanay hubin bay qoraan warna ma helaan waa khasab wariyuhu inuu qoro haddii warka loo waayo wasiirku xidho ina yarna xafiiska keeno mushaahar intuu sameeyo yidhaahdo advertise makaadir oo waxaanu soo furay wadda heblaayo iyo maxay heblaayo iyo maxay heblaayo dee waxaas war ummadda u noqon maayaan xaqiiqada wasiirku waa inuu ummadda loo soo bandhigaa wariyaashuna si siman ay warka u helaan midda labaad midda saddexaad waayaha marka laga yimaado maanta haysta waxyaabaha aanu ka warwarsanahay baan iyadan idin sheegaya maanta waxaanu ka warwarsanahay in saxaafadda waaya adag kusoo wajahan yihiin in dabiino fara badan iyo shaqoolo fara badan oo ay ka mid yihiin guddi anshaxoo lagu dabrayo xorriyadda saxaafadda oo ay ka mid yihiin xeer saxaafadeed oo la doonayo in la furto oo aan filayo inay yihiin waxyaabihii karayska faraha badanna loogu abuuray anaga inay kooga tahay waa waxaasoo dhan baa soo socda haddaa asxaab mucaarad tihiin haddaad suxufiyiin institutional tihiin iyo haddaad tihiin kuwa kuraaso ku fadhiistay iyo haddaad tihiin kuwa wariyayaalaba waayaha soo socday dhabtii waa nooca runtii kusii tiigaali maayo dee sulx baa meesha yimi ma jeclaan sii tiigaalo laakiin kolley madalahan oo kale marka la isugu yimaado
ملاكفتك وفرين هاي وردوا واحد مقاشين حنون إيبولا لين هذا أفريقيا كبدي وقوي كبدعي runtii wixii nagu dhacay ilaahay inaguma keenay Ebola nagu dhacay xanuunka Ebola kaasaan kala firdiyay kaasaan midkaaba meel ku tuuray cid kalena naguma noqonay wasiirka warfaafinta saaxiibka halka fadhiya ayaa nagu noqday wasiirka ayaa Ebola nagu noqday anoo halkii soo gabagabeeyay wasiirka mid dooranaya waxaan leeyahay waga kaftaraa madaxdu dhaqan bay leedahay dun bay leedahay dulqaad bay leedahay anoo lahayn in adeerkay intaba waad ka maran tahay waxaan leeyahay wasiir wixii shalay malaaqa ka dhacay iyo waxaad soorta ku samaysay labadaba ka feejigan oo dib yaa weyn waxaan u mahadnaqayaa runtii oo aad loogu mahadnaqay xubnihii ibafurka u sameeyey heshiiskan iyo istitanaasubkan iyo wadajirkan iyo xasiloondaha ka dhacday maanta oo uu ibafurkeeda lahaa Muuse Faarax Jaamir oo ay xubnaha dhinaca kale gudoomiyaha cusub soo maray ka soo bilaabay hadalkiisa runtii Farxaan Xaaji Cali wuxuu ahaa ninkii ruugaga dhulka u dhigay arrintan markay caakirantay waa ninkii jilbaha dhulka u dhigay Maxamed Cabdi Iligna waa ninkii qalinka ku soo gunaanaday saddexdaasaan aad ugu mahadnaqayaa waad mahadsantihiin. Salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.